kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada qodob aan ku dul istaagayno wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda cakiran ee ka taagan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. madaxweynaha Puntland iyo guddiga doorashooyinka golihiisa iyo baarlamaanka ayaa waxay isku raaceen inay qabtaan doorasho qof iyo cod ah taasi oo ay ka biyadiidsanayd ama aad uga cagajiidaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhanka kale Puntland gudaheeda waxa uu kala kulmayay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni mucaarad xoogan oo hubeysan kaasi oo marar fara badan gacan ka hadal kaga hor yimid go'aankan qofka iyo codka ah oo ay ka saluugsan yihiin. ugu dambeyn ismariwaaga oo sii adkaaday wuxuu baarlamaanka Puntland u fadhiistay horaantii toddobaadkii tagay in ay u gacan taagaan habraaca doorashooyinka sida uu noqon doono iyo doorashada wax ka bedelka lagu sameeyay taasoo loo asteeyay ama la hindisay in ay noqoto mid qof iyo cod ah. murankan oo isa soo jiijiitay Puntland waxay leedahay marjic loo noqdo oo markii siyaasadda iyo arrimahan masiiriga ahi madaxa isla galaan dib loogu noqdo kala miira kala shaandheeyo go'aamana ka soo saara. waa ismada Puntland xalay waxay soo saareen war taageeraya dhanka mucaaradka iyo dowladda federaalka taasi oo ka dhan ah go'aankii ay qaateen baarlamaanka Puntland beek oo ah guddiga doorashooyinka iyo golaha kale ay golayaasha kale ee maamulka ee Puntland sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. go'aankan ismada ayaa waxa uu ahaa in doorashadu ay dhacdo xilligeedii una qabsoonto qaabka ama xulista odayaasha dhaqanku ay soo xiliyeen baarlamaanka madaxweynaha kadib ay dooranayeen. go'aankaasi markii uu soo shaac baxay waxa go'aan adag kaga hor yimid madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni kaasi oo war saxaafadeed ay soo saartay guddigiisa doorashadu ama guddiga doorashada ee isaga u janjeeray dhankiisa ku qeexeen in doorashadu ay qof iyo cod noqon doonto qaabkeedina u dhici doonto. waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland kaasi oo sheegay in cidda kaliya ee jebin karta go'aamadan lagu gaaray ay tahay maxkamadda guud ee Puntland. mucaaradka diidmada xoogan ee qayaxan kaga hortaagnaa Deni inuu hawshan qof iyo codka ah suurtageliya ayaa waxay taageereen dhammaan qodobadii ay isimada dhaqanka ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland soo saareen. warka daran ee ugu dambeyn waxa saaka war saxaafadeed ay qabteen ay ku qeexeen go'aankooda ciidanka danab ee commandoska ee Puntland kuwaasi oo sheegay in ay taageersan yihiin gabi ahaanna aqbaleen go'aankii ka soo baxay isimada dhaqanka ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. warkan qoraalka ee ciidanka commandoska Puntland ee danab uu soo saaray ayaa wuxuu ahaa sida tan: taliska ciidamada sida gaarka u tababaran ee Puntland oo war saxaafadeed soo saaray ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee maamulkaasi gaar ahaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka Puntland. taliska ayaa ugu horeyn soo dhaweeyay go'aamadii ay soo saareen isimada oo ku taliyay in doorashadu ay dhacdo waqtigeedii lana soo xulo 66 xildhibaan iyagoo sheegay in aan la gaarin doorasho qof iyo cod ah lagana rabo maamulka cusub ee la dooran doono inay taas suurtageliyaan. taliska ciidanka commandoska ee danab ee Puntland wuxuu soo dhaweynayaa go'aamada ka soo baxay shirkii isimada dhaqanka ee uga socday caasimadda Garowe kuwaasi oo ay u arkeen in ay yihiin xalka kaliya ee looga baaqsan karo amni darro fawdo iyo qalalaase ka dhaca dalka ayaa waxaa lagu yiri war saxaafadeedka uu soo saaray hoggaanka ciidanka danab ee Puntland. sidoo kale wuxuu talisku intaasi ku daray in uu aqbalayo go'aamada ay qaateen isimadu ay u arkeen xalka kaliya ee looga gudbi karo xiisadan ka taagan Puntland. waxaan bulshada reer Puntland iyo daneeyaasha siyaasadda gobolka u cadeynaynaa inaan aqbalay go'aamada isimada ayna yihiin guddoon isimo. waxaa sidoo kale qoraalka lagu yiri isimadu waa marjica udub dhexaadka u ah dhismaha nabadda deganaanta iyo ummadnimada reer Puntland. ciidamada commandoska ee danab ee Puntland ayaa sidoo kale fariin u diray shacabka waxayna ugu baaqeen in ay taageeraan bayaankan ka soo baxay isimada. ugu dambeyn talisku wuxuu ka digay in Puntland la geliyo tafaraaruq dastuuriya taasi oo uu sheegay
in ay ka dhalan karto amni darro, fawda iyo qalalaasa siyaasadeed. waxaan uga digaynaa in ay ka tanaasulaan cid kasta oo ku howlan sidii dalku u geli lahaa tafaraaruq dastuuriya, taasoo keeni karta qalalaaso siyaasadeed iyo dhaqaale iyo mid amniba. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani uu ku gacan sayray go'aamadii ka soo baxay isimada dhaqanka ee doorashooyinka ku aadanaa. dhanka kale, madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani ayaa jawaab adag ka bixiyay hadalkii ama go'aankii ka soo baxay isimada dhaqanka ee Puntland oo maalmahan shir uga socday caasimadda Garowe, kaasi oo ku aadanaa khilaafka cusub ee arrimaha doorashooyinka. go'aankan isimada oo 11 qodob ka koobnaa ayaa lagu sheegay in dowladda looga baahan yahay inay doorashada ku qabato xilligeedii 8 Janaayo, isla markaana xildhibaanada baarlamaanku ay ku yimaadaan sidii hore ee odayaasha dhaqanku ay u soo xili jireen 66 xubnood. geedi socodka doorashooyinka dimuqraadiga ah ee Puntland waa mustaqbalka horumarka dowladnimo, amni iyo mid bulsho. dadka reer Puntland waxa ay ku taabayaan muddo rubuc qarni ah sidii shacabka dowladda Puntland ay uga mari dhaliyeen rajadii dimuqraadiyadda Puntland, iyadoo oo doorasho qof iyo cod ah lagu soo doortay golayaasha deegaanka ee 33 degmo. reer Puntland ayaa sidoo kale u hamuun qaba una diyaar garoobaya in ay codkooda ku doortaan golaha wakiilada, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xilliga ay guddiga doorashooyinku u asteeyeen qabsoomidda doorashada. waxaa dalku uu yeeshay xisbiyo siyaasadeed oo bulshada ku matala go'aamada masiiriga ah ee arrimaha siyaasadda doorashooyinka. waxaa kaloo Puntland ay leedahay hay'ado dawli ah sida guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka BEC oo u xilsaaran qabsoomidda doorashada, maxkamadda dastuuriga ah iyo golayaasha dowladda. BEC waxay diyaarisay dhammaan asaaskii doorashooyinka iyada oo wada tashi kala samaysay xisbiyada iyo golayaasha xukuumadda oo caawa ansixiyay wax ka beddelka xeerka muhiimka u ah qabsoomidda doorashooyinka, kuwaasi oo si dhaqso ah loogu gudbi doono gudagalka golaha wakiilada. haddaba dowladda Puntland ayaa iyadoo ixtiraamaysa kala ra'yi duwanaanshaha iyo doodaha ku salaysan hanaanka dimuqraadiga ah waxaa ka go'an in ay dhagaysato talooyinka u helinaya horumarka iyo miro dhalinta hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka loo madlan yahay ee hal qof iyo cod ah. waxaan ugu dambeyntii ugu baaqaynaa dadka reer Puntland in ay ilaalsadaan midnimadooda, dowladnimadooda, una midoobaan qabsoomidda doorashooyinka si Puntland horseed ugu noqoto Soomaali nabad, dimuqraadiyad ah, kuna dhisan hanaanka federaalka ah. daawadayaal, go'aamadaasi waxay ahaayeen go'aamadii uu madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani kaga jawaabay ama uu ku diiday oo ugu gacan sayray go'aamadii ay isimada golaha dhaqanka ee dowladda Puntland ay xalay gaadheen. arrintu waxay maraysaa meel adag. ciidankii isimadii iyo mucaaradkii iyo dowladdii federaalka ahaa waxay isku raaceen in aynan qabsoomi karin waqti xaadirkan doorasho qof iyo cod ah. madaxweynaha Puntland, baarlamaankii Puntland iyo guddigii doorashooyinku iyaguna waxay isku raaceen inay qabsoomi karto doorasho qof iyo cod ah. bal daawade adiguna fikirkaaga nala wadaag. mahadsanidin.